qabiilka la buufinayo asaagan ku beegsan mayne waxbartaan barwaaqo gaarne بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركز كسر دوال مقالة تحنها يعني هل كان كسر بهن جرني كسر بسنة مادة إنجليز جاران جريد كسديدات ولبا وحن كجرنا يونت كي تضبط trees and our environment muuqaal kan wuxuu ku saabsan yahay vocabulary oo ku qoran page-ka 97 98 iyo kan 99aad daawade haddii ay tamir kugu horeysay aad soo booqato channelka waxa ka dalbanaa inaad ugu soo biirto oo aad subscribe inoo saartid haddii aad hore noogu soo biirtayna waxa ka codsanaynaa inaad muuqaalka like noo siisid haddaba aan bilaabano muuqaalkeena ama casharkeena maanta isku soo noqod wanaagsan waa rajayna muuqaalka laag noo soo siisay haddaba gudaha u galno su'aalaheena waxa uu dhahay juice ka dooro from the alternatives dooqiyada juice ka dooro from the alternatives dooqiyada to complete si aad ugu dhamaystirtid the sentences jumlooyinka tan ugu horeysa waxay tahay marka nowadays dhawaanahan ama maalmahan trees are useful geedaha waxay waxtar u leeyihiin to all dhammaan marka geedaha waxay waxtar u leeyihiin dhammaan ee ugu horeyso ee waxay tahay non living things waxyaabaha aan nooleen ayay waxtar u leeyihiin b waxaa ku qoran living things waxyaabaha nool c waxaa qoran plants only dhirta oo keliya d waxaa qoran people only dadka oo keliya marka nowadays dhawaanahan ama maalmahan trees geedaha are useful waxay waxtar u leeyihiin to all b ayay noqonaysaa marka to all living things dhammaan noolayaas su-aasha labaad ee ku xigta waxay tahay have depended waxay ku tiirsan yihiin on priceless trees geeda aan qiimo lahayn on priceless trees geeda aan qiimo lahayn marka waxaa haysataa doorashooyinkaas a ilaa d a waxaa haysataa bag of trees diirka ama qolofta geedaha bag of trees waa diirka ama qolofta geedaha b waxaa haysataa forest oo kayn ah sidoo kale c waxaa haysataa human being oo bini aadan ah dna waxaa haysataa sources of fuel oo ah ilaha laga helo waxyaabaha kulka laga helo ama laga helo tamarta sida qoryaha dhuxusha iyo wixii la mid ah marka jawaabta saxda ah waa human being waa bini aadan oo c ah numberka saddexaad ee ku xigo wuxuu yahay trees geedaha give us waxayna siiyaan money things waxyaabo badan such as sida a waxayna siiyaan wonderful numbers train cajiib ah b waxayna siiyaan climate cimilo c waxayna siiyaan disaster musiibo ama aafo d waxayna siiyaan food oo cunto ah marka jawaabta saxda ah waa d oo food ah cunto ayayna siiyaan marka geedaha numberka afraad ku xigo trees geedaha give us waxayna siiyaan over wax ka badan half the earth's supply half ka mid ah ama kalabar ka mid ah waxyaabaha dhulka qayb ka qaadanaysa inaan ku sii noolaano ama sahayda dhulka lagu sii joogo half ka mid ah waxaana siiyo geedaha marka waxaas maxay tahay marka a e b e c iyo sidoo kale waxaa haysanaa d a waa oxygen okay because b sidoo kale waa chlorine c waa carbon d na waa iron
marka waxa haafka ah ee dhulka markaan joogno oo sahay noo ah waa oxygen haddii oxygen la waayo dabcan nolol ma jirto marka jawaabta saxda ah waa oxygen oo A ah su'aasha sanaad ee ku xigto waxay tahay we are sorry waa ka xunnahay to say inaan dhahno trees geedaha are being carelessly waxay yihiin kuwa si taxadar la'aan ah okay A B C D A waxaa qoran save it are being carelessly save it si taxadar la'aan ah ayaa loo badbaadinayaa B waxaa qoran are being carelessly wiped out waxaa si taxadar la'aan ah loo baabi'inayaa geedaha wiped out waa baabi'in ama xaalufin C waxaa qoran care out loo dhameynayaa ama maxaa la yiraahdaa loo tirtirayaa D waxaa qoran fueled out loo shidanayaa oo looga dhiganayaa qoryo dhuxul ama wax walba oo laga heli karo tamar ama kul marka jawaabta saxda ah waa B oo ah wiped out xaalufin ama loo xaalufinayaa si carelessly ah oo taxadar la'aan ah su'aasha lixaad above all trees dhammaan geedaha assistance waxay naga caawiyaan to prevent inaan ka hortagno inaan ka hortagno enough money lacag waafi ah B inaan ka hortagno problems dhibaatooyin C inaan ka hortagno soil erosion nabaad guur ciideed soil erosion nabaad guur ciideed D inaan ka hortagno loss of sight aragti la'aan ama indhabeel loss of sight aragti la'aan sight waa arag lossna waa in la lumiyo ama la beelo marka jawaabta saxda ah waa C oo ah soil erosion nabaad guur ciideed questionka toddobaad waxay tahay we now waan ognahay that forests in kaymuhu are ay yihiin sources of ilaha inay u yihiin for a country wadan we now waan ognahay that forests in kaymuhu are sources of inay ila u yihiin for a country wadan marka wadanka ilaha u yihiin maxay tahay dabcan doorashooyinkan ayaan fiirinaynaa A iyo B iyo C iyo sidoo kale D A waxay u yihiin allaha temperature waa sources of temperature for a country waa ilaha heerkulka ee wadan sidoo kale B waxaa dhahay environment waa ilaha deegaanka ee wadan sidoo kale C wuxuu dhahay weather waa jawi waa ilaha jawiga ee wadan D na waxaa qoran waa ilaha lacagta ee wadan sources of money for a country waa ilaha lacagta ee wadan marka jawaabta saxda ah waa D su'aasha sideedaad ee ku xigto iyadoo waxay tahay soil erosion nabaad guur ciideedka is caused by waxaa sababo cutting down trees geedaha oo la jaro in large number weliba tiro badan laga jaro and therefore isla markaasna leaving the soil ay ciidda marka meesha ay ka guurto A iyo B iyo C marka ka saxan sidoo kaleeto A waxaa waaye unprotected ciidda waxay u samaynaysaa leaving ama maxay yiraahdaa ay barteeda uga tagaysaa unprotected si aan laga hortagi karin B unchanged si aan la bedeli karin C unkind yani si naxariis darro ah ama aan naxariis lahayn D conserving si xafidan ayay marka leaving u samaynaysaa soilka ama ciidda marka jawaabta saxda ah waa A waxay noqonaysaa marka mid u tagto unprotected si aan laga hortagi karin ama ayadoo aan laga hortagi karin sababtoo ah wax ka hortagi karo waa in meesha geedo ay ku yaalaan geedihii ku yaala marka haddii cutting down lagu sameeyey oo la jaray yacni booskooda way ka guurayaan marka ayadoo weliba unprotected ah oo aan laga hortagi karin numberka sagaalaad ku xiga wuxuu yahay the trees geedaha rivers webiyada hills buuraha valleys dooxooyinka animals xayawaanada and the entire surrounding dhammaan waxyaabaha ku hareeraysan including ay ku jirto the air we breathe hawada aan ku neefsano scolid waxaa loo yaqaanaa okay marka dooqida ah aysan ka saxan the trees geedaha rivers webiyada hills buuraha valleys dooxooyinka
animals xayawaanada and the entire surrounding iyo dhammaan waxyaabaha ku hareeraysan including ay ku jirto the air we breathe hawada aan ku neefsano is called waxaa loo yaqaanaa a waxaa noo qoran buildings dhismooyin b waxaa qoran compound oo iyaduna ah dhisme compound waxaa la dhahaa dhismo badan waa number of buildings dhismooyinka markay bataan weliba markay isku korsaaran yihiin dabaq oo kale waxaa dhihi karnaa compound c waxaa noo qoran environment oo ah deegaan dina waxaa noo qoran towns magaalooyin marka jawaabta saxda ah waa environment waa deegaan su-aasha tobnaad ee u dambaysa waxay tahay it's therefore sidaas darteed very important waxaa aad muhiim u ah to stop in la joojiyo destruction of trees baabi'inta iyo xaalufinta geedaha and participate in lagana qayb qaato okay it's therefore sidaas darteed very important waxaa aad muhiim u ah to stop in la joojiyo destruction of trees baabi'inta geedaha and participate in lagana qayb qaato ee soil erosion activities howlo lagu nabaad guurinayo ciidda soil erosion activities waa howlo ama waxqabadyo lagu nabaad guurinayo ciidda b waa in laga qayb qaataa alarming activities howlo ama waxqabadyo qalqalgelin ah ama argagaxgelin ah alarming activities in laga qayb qaato howlo ama waxqabadyo lagu dadka lagu maxaa la yidhahdaa qalqalgelinayo alarming dabcan waa qalqalgelin ama argagaxgelin sidoo kale c waxaa noo qoran food providing activities waxqabadyo lagu bixinayo cunto ama howlo lagu bixinayo cunto d sidoo kale waxaa noo qoran trees planting activities waxqabadyo lagu beerayo dhir ama geedo tree planting activities waxqabadyo lagu beerayo geedo dabcan jawaabta ugu dambeysa ayaa saxan oo d ah trees planting activities in laga qayb qaato waxqabadyo lagu beerayo geedo 10 su'aal ee ku qornaa page-ka 97 98 iyo kan 99 halkaas ay ku soo dhabaadeen waan rajaynaa in la fahmo lana soo xasuustay halkaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqato channelka waxaa kaa dalbanaa inaan ugu soo biirto oo aad subscribe inoo saarto haddii aad hore inoogu soo biirtin waxaa kaa codsanaynaa inaad muuqaalka laag noo siisid sharna gareysid waa mahadsan tahay ramadaan mubaarak assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh